السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي kusoo dhawaada muuqaalkeena YouTube. Sida caadiga ah waxaan iska qaadnaa sawiro aan la wadaagno asxaabteena, gaar ahaan kuwa baraha bulshada. Laga yaabee inay noqdaan sawiradaas sawiradii u dambeeyay nolosheena. Haddaba muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay sawiro la qaaday kahor intaysan dhicin musiibooyin. Waryaan kugu daalinni, shaaxaaga hore u soo qaado, muuqaalkana like tala dhaafin. Mayinga Nasika waxay kalkaaliso u dhalatay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waxayna ahayd kalkaalisooyinkii la dagaalamayay xanuunkii Ebola ee dilaacay sanadii 1976. balse sawirkan ayuu ahaa sawirkii ugu dambeeyay ee laga qaado kadib markii laga helay xanuunka Ebola, wayna u geeriyootay qaraxii Omega ee dhacay sanadii 1988. wuxuuna ahaa gaari waxyaalaha qaraxa laga soo buuxiyay, waana gaarigan ka muuqda sawirkan ee kalarka guudan. haddaba qaraxan waxa ku dhintay 29 qof ku dhawaad, waxaana ku dhaawacmay dad gaaraya 220 qof, balse aabahan iyo cunugiisa way ka badbaadeen. laakiin ciidan ka badbaadin waa sawir qaadaha ee qaaday sawirkan wuxuu ahaa daqiiqadii ugu dambeeyay ee noloshiisa. gurilahan lagu magacaabo Harambe waana la toogtay kadib markii uu cunug yar ku dhacay goobtii uu joogay, waxayna dhacday sanadii 2016. waxayna ka dhacday beerta xayawaanaadka ee Cincinnati. dilkii dhaxal sugihii Austria-Hungary ee Archduke Ferdinand. sawirkan wuxuu ahaa 1 saac ka hor dilkiisa, waxaana ku heliyay xaaskiisa Sophie, waana mid ka mid ah dhacdooyinkii sababay dagaalkii koowaad. Japan Airlines duulimaadkii 123. sawirkan ayuu ahaa sawirkii ugu dambeeyay ee laga helay ka hor burburkii diyaaradda, waxaana saarnaa rakaab tiradoodu dhammayd 520 ruux. kaliya waxaa ka badbaaday 4 qof. Titanic adigay daawanaya uma maleemayo inaadan aqoon markabkan. haddaba sawirkan ayuu ahaa sawirkii ugu dambeeyay ee laga qaado ka hor quusidiisii, waxaana saarnaa dad gaaraya 2224 qof oo rakaab iyo shaqaale isku jiray, waxaana ku naf waayay 1500 ruux. Diana boqoradii Wales waxaa gaarigan la saaran staafkeeda ee dhanka bidixxiga Trevor Histonis iyo darawalkeedii Henry Paul, halka iyadoo ahayd mid hoos fiirinaysa xilliga sawirka laga qaaday. waxayna ahayd xilli habeen ah oo ahayd taariikhdu 31 Agoosto 1997. sawirkan ayaa ahaa daqiiqadii ugu dambeeyay ee noloshooda, waxayna galeen shil gaari oo ay ku wada geeriyoodeen George Muller iyo Sandy Irvine. sawirkan ayaa ahaa wax yar ka hor intaysan bilaabin fuulitaanka buurta Everest ee sanadii 1924. walow aan la ogeyn inay gaareen fiiqa ugu sare buurta, balse dib dambe umaysan soo laaban safarkaas kadib. Paul Walker jilaagii reer Mareykan, kani waa sawirkii ugu dambeeyay iyo daqiiqadii ugu dambeeyay ee noloshiisa. wuxuu fuulay gaariga qayb ka mid ah kaas oo galay shil gaari daqiiqado gudahood, isaga iyo darawalkiisana halkaas ay ku geeriyoodeen. waxayna ahayd sanadii 2013. duulimaadkii diyaaradii Trans-Asia 235. sawirkan ayaa ahaa ka hor intaysan ku dhicin webiga Keelong ee Taiwan, waxayna sidii rakaab 58 qof ah, waxaana ka badbaaday 15 qof. haddaba haddaad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan waleys amran muuqaalka leg dhac ku sii, sidoo kale nagu soo biir. wabilaahi tawfiiq.